horta goday waa cunsuri oo udula jeedo nin cunsuri waa oo qabiilista ah dictatorial waa nin dictatorial waa nin danistaan waa hay muxuu rabay nin danistaan waa maxaad ku tiri waxaan ku iri waxaa isu yimi aniga iyo nin dhintay oo la dhihi jiray abudujana iyo aadan ayrow iyo asaga iyo ibrahim afqaan iyo ninka la yidhaahdo faajabalo xamaran isugu nimid markaas amxarada haysata waa dagaalkii weynaa markaan bilaaba waxaan iri nimankiina reer waqooyi labadiinaan nin u dira aan waqooyi culeyska ha laga qaado koonfur waa lacag qarashkan anaa baxaa meesha la yidhaahdo galgalana waxaa jooga ninka la yidhaahdo atamna lacagaan u dira adinkuna waxaa ir bax nin keena waa ismar weyna habeenkii maxay ku jawaabayeen maya meeshaas waana la yaqaan ma tegi karno war annaga waana la yaqaan guryahayga waa kuwan sanalo tegi kar sanalo tegi kar guryahayga waa kuwan waana la yaqaan guryahayna waan gudnay cabdullaahi yuusuf iyo ninka la yidhaahdo daahir riyaale haddaan daahir riyaale murtad ahays murtadsadayna cabdullaahi yuusuf ma murtadsadanaan waa maqlaa aawa faadsan qolo waxaa ka nool aawa intaan ugo faadsan qolo waay waa ka nool inuu godanay waxaa leeyahay dad uu dilay lacag uu soo dhacay waa ka soo cararay waqooyiga sidaasuu kusoo galay xamar marka hargeysa dadka jooga uma sheegi kara diin miya maya iyo wuxuu rabo kama dhaadhic uma socdaba looma socdo war haddaan kuu warrabo maanta gurigaana kula wareegay hay wax wadankan ka muxuu rabay marka dadkan waana la dulmiyey dagaalku haddaad u sifristo oo nimankaasi maaragtay nin marka aan hargeysa dagaalku u ekaa nin soo dulmiyey wankii hawiyaa looga carsaa oo salkiisu ekaa mararka qaar ugu ekaa godane habeenkii saddexaadaan sunni dhaawacaan ahay markaano dhaawacaan ay ugu yaal marka waxaa rabaa in lay qaado intaan lay qaadana rabaa in wax kala agaasimo waxaan ku eriyey ha baxo ibrahim afqaan ha aado meesha habeenka ugu dambeed waxay dheheen habeenkaasi meesha ilmaheenniya naagaheenniyaa jira wallahi waa saas wallahi waa soomana waa saas oo nagihin ilmihiin waa laynaya idinkoo gashay kuwani waa sawtan la qiyo la lahay ani ilmahayga xaggee joogaan markaas ma taqaan burco ibrahim afqaan ilmihiisa xaggee markaas ninka la yidhaahdo faadsan qol ilmihiisa xaggee joogaan burco guryahayaan ka qaciyey oo dareenkaas goorbuu ku galay markaa in dadkiin in la laayo loo yimid markaas wuu geli doonaa markaas wax ka horeeya markay xoogaa nabadda diideen aad dareenku igalay oo aan tegi doono wax aan xashka aadi doono oy afkambi doonaan oy taliskayga qabsan doonaan aan dareenku geli doonaa marka xilligaas adigu maxaakimtii oo dhisanaad ogeyd nimanka inay dal iyo dadba inay burburiyaan u yimaadeen maya markaad cararaysaba waa ku kala markaan cararaya waa ku kala tagteen markay diideen inaan etoobiya aanan shafka saarin oy shafka saareen oo ay xabadda aan ogaaday nimankaan in la burburiyo markaasay aan hubsaday sababta etoobiya miyaan fiiri maxaa cadaawaddaa keeni karay markaa dad soomaali ah inay intay idin yimaadaan aada martigelisaan oo idin burburiyaan oo asagaba uusan sidaa yeeleen dhulka iyo deegaanka uu ka yimid inaad idinku sidaa yeeshaan say ku dhici karta in adeero laba cudurba waa nahay horta labada cuduroo nahay waxay ahaayeen cudur iskuma anaan toosnayno dadkaanaan koonfurtaas ma anaan fahmi karin cudur kale waa nahayayo inaan horey iska dilno annagu ma aanaan danayni marar badan waa ka leexanay laakiin iyagaa xabadda bilaabi lahaaba iyaga markas inay bilaabaan ololeynahay markaa tiri waqooyi aada waxay yidhahdeen carruurteena yaa joogtay iyo ilmahayna meeshaas war aniga carruurteyda waa qaxiye waxaas af soomaali maahe meesha aada markaasaan ku iri warayaa dhegeystaan ku iri hargeysa etoobiyaanaa jooga isaaq yahuud sheegtaa jooga cirab fallaasha sheegtay maraykanaa jooga ingiriisaa jooga gaal oo dhanaa jooga
maxaan leenahay dhexdooda dagaalka kaliya ku koobay waa inaad halkiisa aadaan waan xanaaqay waa laiga tegey may habeenkii labaadaan xanaaqay habeenkii saddexaadaan laysoo noqday waa niman qayaamo badan raalli ahaa udawaa wasiiro aadankii soo tashkiilaya waa in Ethiopia xagga laadaha dagaalka waa inuu gudaha Ethiopia waa in dagaalka socda iyo waa in dagaalkana walaas in laga kala qaado koonfurta walaaska waa in laga kala qaado maxaa dhacay halka maajaad ku gooniya aadankii iyo aduu qadartuna waa jirtaa moogta in aadankii ay la yiri aadan lacagsi aadan Ethiopia aada dagaalka asaasaan la oqoon dhalinyarada ku xirayna isaaqa isaga hawsha abaabula waa been aadan lacag boqol kun si waana diray waa wadi dhaawacana moogta wasraacnay waan isla tagnay gur'aan aan Ethiopia ka geliyay ana geliyay aniga shan dowladood ku marano ana wantaan wax walba ana tariib jiray aadan hal qof u diiday inay u diraan aad iyo aad marka nimanka saasad ku aragtay dhaqankooda ninka la yiraahdo godane saddex baa dowlad iraan afqaan nin wuxuu ahaa afnaan سوي ساقها والله ما أقال واي nin afnaan oo saaxiib noo sheekaysan oo ah idinku marka dadka idin yimaada xataa qabilkooda ma weydiisaan wax u socdaan ma weydiisaan ilaahay dirta socdaan kuleeyahay Soomaali iyo ajnabi waa soo dhaweynaysaa waa soo dhaweynaysaa dad waxaan naybka jabbaysan hadhow ilmihiin iyo dadkiina waa laynaya waata hadda waay guryaheedii qarxiraata waay marka afgaar adii wada Ibrahim marka nin saaxiibkeeyo la sheekaysto dabeecad macaan u ahaa laakiin haddana warkii uu qaadi jiray yuu geynaya godane ina aganist ku ahay waan ka soo horjeedo oon fahansanahay ayuu u sheegay markii dambe godana dili doona afkaanka laftiisa godana dilaa waay faad shaqola ninka leeyahay waa beena waay ninkaas waa nin dhawal uu socdo xoogna lagu haysto maxaa ka wadaa absana kama bixi ma ka beeka badbaadadiisa ku jirto kullu waa maxabiis badbaadada ku jirto hadda waa maxabiis kullu habirkiisa dhalanta waagaan ka reeb weyn kullu waa maxabiis abgaalkii iyo kulli haday maxaa wala dilaya macna lama ogola xilna lama ogola mana bixi karaan wala dila